munaasabadan oo lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee afka hooyo oo ay soo qaban qaabiyeen midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed qaybtiisa Uganda oo uu horkacayay gudoomiyaha ururka qaybtiisa Uganda Cabduqaadir Fiidka ayaa waxaa ka soo qayb galay qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda, gudoomiyaasha ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha kala duwan ee dalka Uganda, ururada Soomaaliyeed ee ka dhisan dalkan iyo qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Uganda. ugu horeyn gudoomiyaha ururka ardayda qaranka Soomaaliyeed qaybtiisa Uganda oo lahaa agaasinka munaasabadan ayaa dhalinyarada ka soo qayb gashay kula dardaarmay ilaalinta afka hooyo. marka waxaan idin kula dardaarmayaa in maalintan iyo afkeena hooyo aan ilaashano hadduu alla idmo xitaa haddii ugu yaraan aanan wax ku soo kordhin karin kollayto bal intii awoowayaasheen naga soo gaartay inaanan sii daynino aan haysano markaasi aanan lumin laakiin sida xaqiiqada ah inta badan hadda afkeena Soomaaliga inaan ku hadalno marka laga soo tago wuu sii lumayaa haddii aad fiiriso xafiisyadii dawladda waxa laga isticmaalayo waa afaf qalaad waxbarashadii marka waxaan rajaynaynaa hadduu alla idmo maadaama dhalinyaradii dalka oo bulshadani aan dadkii ugu badan ka nahay hadduu alla idmo inaan awoodeyna ugu faa'iideyno iyo cilmiga aan baranayno jiritaanka iyo markaasi in aanan lumin luqadeena afka hooyo. abwaanadii iyo martidii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay maalintan iyagoona ururka Maqso uga mahadceliyay agaasinka xafladan. markii labada gobol isku biireen dawladii rayidka ahayd dhalatay ama shacabka ahayd waxay isku dayeen afka in la qoro maadaama dadka in Talyaani taqaanay oo waraaqaha Talyaani lagu daawacayay qolada Ingiriis ku qoraysay si marka isfahan halka ka jiray isfahan waagaas Soomaali looga dhigo. dadaalkaas gudiyaal sameeyay gudiyadii ma mira dhalin laakiin wuxuu ahaa hiikac sidoo kale Soomaalidu waxa ka guuxayay xafarta la qaadan doono noocay tahay dhalin wada hawshaysiyo hadii duulan la habayo hubko la ordaayiyo haday heegan oo noqoto hanqa dhacay sidiisii rasaas ugu ka yeedhayo higta beelelka haadko dhergiyo higil madoobaday fulaygu waa nin kula haybada oo laga hayaa meele halkuu kaaga toosna hadii dhaxani ka hayso hooma waad huraysaa rabow gaalo ku hilbees waxaan lahaa in mataqaanaa qof walba ka qayb qaato afkeeni sidii dadkii naga horeeyay noogu soo shaqeeyeen anagana inaan u isticmaalno oo mataqaanaa caruurteena iyo dadka naga dambeeya si aysan uga dhaxlin ereyo cusub oo anaga aan meesha soo gelinay. waan uga mahadcelinayaa wakiilka ardayda qaranka Soomaaliyeed ama midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda Mr. Fiidka runtii juhdiga uu ku bixiyay xafladan inay dhacdo aadka u qiimaha badan loogu dabaaldegayo afkii hooyo waa wax aad u cajiib ah. anagoo kaashanayna dhammaan safaaraddeena bulshadeena maanta hanoo noqoto maalin runtii waxa weeye gudoomiyaha horta ugu mahadcelinaya maamulka kuma jiro anagoo kaashan doona safaaradda iyo dhammaan xubnaha kale idinkana in la tashan doona waxaan rabnaa biidnillaahi rabbana inaan maalinteeda ka dhaqan ka duwan aan ku midgelino biidnillaahi rabbana. ugu dambeyn qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda Jibriil Afyare oo soo xiray munaasabadda ayaa dhankiisa ardayda Soomaaliyeed ku bogaadiyay ilaalinta dhaqanka iyo afka hooyo isagoona balan qaaday in safaaradda ay garab istaagi doonto. Soomaaligeena ama afka hooyo waa af maxay soo jireen ahaa oo maxay Soomaalidana runtii ku faanto waagii la qoray Ilaahay u naxariisto madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre anuu waxaan xasuustaa anoo yar ubax kacaankan ku jiray naftirkeygu ma yiri odaygaas unbaa xeerka aan ka yarahay guulaysta isgarab qabsada hadaalina dad baan sugayay Soomaaliya idinka u maqan wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Shaafiic Usmaan Ali, Somali Cable TV, Kampala.